maanta waxaan idinla wadaagayaa sheeko dab ah oo dhacday bishii November sanadkii 2022. waa sheeko muujinaysa in dhibaatadu ay kugu soo socoto xilli aadan ka fakirayn. 4 dhalinyaro ah oo saaxiibo ahaa waxna ka wada baran jiray jaamacad ayaa habeenkii ugu dambeeyay noloshooda si caadi ah u qaatay, ayagoo muuqaalo soo dhigayay baraha bulshada. markii ay gurigoodii ku soo laabteen oo ay seexdeen abaaro 3 ilaa 4 habeenimo, nin qariib ah ayaa si aamusnaan ah guriga u soo galay isagoo wata mindi weyn. subaxdii xigtay waxaa guriga dhexdiisa laga helay meydka 4 dhalinyaro ahaa oo la dilay. magaalada oo dhan waxaa ku dhacay argagax. booliskuna waxay bilaabeen baaris adag. ma jirin wax raad dhiig ah oo banaanka u soo baxay, albaabadana lama jabin. laakiinse boolisku waxa ay baareen kaamiradaha wadooyinka, waxayna arkeen gaari cad oo dhowr jeer guriga agtiisa maray saacadii uu dilka dhacay. baaritaan dheer kadib, booliska waxay ogaadeen in gaarigaas uu lahaa nin 28 jir ah oo lagu magacaabi jiray Ryan Cohebridge oo bartay cilmiga dambiyada. waxaa lagu qabtay guriga waalidkiisa oo aad u fog. ninkan wuxuu u haystay inuu yahay qof caqli badan oo aan marnaba la qaban doonin, laakiin raad yar oo DNA ah oo uga tagay midida alaabteeda dhexdeeda ayaa fashilisay sirtiisa. sheekadan waxayna baraysaa in dambiiluhu uusan guuleysan karin tiknoolajiyada